السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال الصبح وناكسن بعد الله نهاي أنا إيو صاحبك محمود عبد العزيز بعد السلام أنا إيو هاي إنا مقنع دا أمال سنتين كذا أنت على واتشوغا حاجة صنع حنوصلنا جوبوين ميل كبحسن كسمايو where Juba River and the Indian Ocean connects. لا صعدة بركة صاحبيال محاكو دري محمود waxaan ku darayaa waa qaybaha quruxda Soomaaliya ayaan ku soo bandhigi doonaa vloggan insha Allah taala sababtoo ah meesha ay webiga iyo badda iska galaan صح biyaha isu dhaafanaan mucjisadaas inaan soo aragna doonana insha Allah 1 liter diyaarsanahay macnaha diyaarsanahay 1 liter man everybody with 1 liter sama waa ku qabaysan aniga laakiin bi badan waa war biyo macaan baa meesha taala maxaa waa ku qabaysan kan is too much saasmiya not for drinking waa gartay marka saaxiibayaal hadda was diyaarinayna waa saacadu waxa weeye waa subax wala dhaafay waa 12:40 daqiiqo door wanaagsan marka raalaha door wanaagsan baad leeyahay subax wanaagsan waa ilaa saaka diyaar garowba ku jirnaa naga raalahaada waa 15 kilomitir oo wado laami ah iyo wado rafa oo marinaya oo laga degay insha Allah nala socod saaxiibayaal هي عم تخلوي كان ممكن waxa ku xiran kan ugu horeeya koor baa ku xiran koor surkiisa maarad soo saaraysa dhawaaq si looga garto meesha joogo dabeerkii iyo lo'dii iyo arigii goobin ma joognaa soo jeedaan webigii baa hadda marinaa geedihii xagga nagaga muuqda dadwey xoolo dhaqatadii xaggaasi joogaan geela iyo marxaba soo dhawaad mudane geel waa salaamanahay waana dhownahay aad baa umahadsanta ايه هليو هابو معلم كلا ورابنا يا مركل كلا ورابنا محل ده او ماي جاد ودي واحد يجي معاه يابو قرب هذا كنت تاغناي قالوا قال سولي بشير قال ده به كمان هيس درين غيري ما هي يلا يا شوكولاته لا تسكر لا شوكولاته ها ترتيب ها تسكر ها هلا There was a meeting of camels here. They were talking about the environment. And they were talking about where Juba River connects with the Indian Ocean. So it was an important meeting. أنا كنا هدينا هنا الريد جيل. شركة من الوعزومة. والوعزومة. كقرب قلنا. واقف تداوديال. ولي وحن سيقل أنا دقان كالقبوين. ساوت شدان. ما بدوين بكوي لبا ممرينو دقان كوا أدبوين هاي. waxaas u dhula oo ballaaran oo aadka u quruxda badan gudaha weeye marka mushkiladda waxa weeye xagga wadada in doon loo raaco xagga gudaha la sii galo dhanka kale la sii galo annaga marka ma awoodna hadda waayo doomihiiba hadda aan ka shaqeynayna oo service ka sameynaya laakiin kor baan insha Allah ka tuseynaa insha Allah waxaan rajeynayaa in Ilaahay nagu simo fursad kale oo aan gudaha ku sii boqon karno insha Allah deegaanka Gobweyn meelo ka sii shisheeyay meesha hadda aan tusayno insha Allah laakiin waa fursad aad u qurux badan weeye aad aan ku faraxsanahay nala socdo saaxiibayaal inta yarta nala daawada kuna soo dhawaada Gobweyn ee Jubbada Hoose
واي مسورت هذا الكلبح ها هاي قطة ما قاعد يقولون حاجة سو قرتي قوبين يا قوبين حاجة قوبين ما ماشي جوجنات حاجة تجيني سامر كذب اسمع wax badan baa naga dhumatay haye bal hadal aniga horta this is my second time here. First time I was here was 2014, but I didn't get the chance to reach until then. But this is totally amazing beauty. This is where the river connects to the Indian Ocean. So you can imagine you don't just find many places that connect to the river where it connects to the ocean. So definitely it's a sight to behold. And it's a tourist destination. Before the Civil War, Juba, the Hostel, or Lower Juba, for those who want to speak English, was the main area where tourists used to come. So it's very beautiful, it's magnificent. You can see the palm trees, you can see the river, you can see the Indian Ocean, and they used to have zoos here and animals, all sorts of animals. So welcome to Somalia. waa gartay wali waa sii soconaynaa gaari meesha lagu mari karo والله I am ruined now. صور صاحب Officially ruined. هو مريا كان حقي كان ورقة ورنا تقول يا حقي مرة ربتي هلك مرة ربتي مايا إذا بدر أنتوا زمانها ساعة ده أي عندنا حقو صور عليه وكاح معطي واتر راح sorry صاحب سبحان الله this is really beautiful بالفيري كذي والله وجو ما شاء الله هذا الدقن ويه رتي سبحان الله وحصل الله سنة معلومة بما أنت قدم بس دقان كقرحون دقان كهرباء أركسة والله وودن كان وودن قنية لكن نصير ضرو دتك يسموه دتك يسواه هردان صومالي سوكعة Okay, وستة وهبي قصي فوقادين. Alright, عشان يا هلكن أنا فولو أنا قناة صح. Because سأقول جدًا دولكم مود السنة. كذا هم إلا سكيل شوي. That is very much dangerous because بقدرنا ده حجرس هم وقته. بقدرنا إيه خصك حجرس أمريكا. We have to be careful. Have to be careful here. وحال إيري. وبيجا أنت لسه صعنايو مش سكوي ماني يعني بدأ وحلص على ساعدي بر إلى ساعدي أفتن دقة واللقة قاري مقري كرو دنيا هدا هسن لهن هراك قال لهن لكن سايدي شيء من الصوروبين مركا أوه بس ولا ماشي لوسي سمينا ياي رجع لقيت تجي وح ماشي شوقنا رجع لقيت تجي أنا قدام بيه ما حسمنا سارة. أنا حسمنا بحول شدينا. بحول شدينا مياه. مركا وحسوق أنت مياه. نوعالتها ما قرتي. مركا ومحكر دلنا يا مركا. كدلنا تدخلها كدلنا. بحول باكلنا سمياه. وحسونا بحول نغني مياه. مع الموت. صدق مع الموت. حرنا مع الموت أخيرا. مركا جيدا حاجة لقى صوت شري. دور سمياه. أو ديجان كمية واقرتي لكن ميسن دواتا إهان لكن قدها اللي شرو كذا دواتا لكن وحنوجي معناها نقول واحد يراد باهذا مياه واقرتي ما أنتو كلا ده وح كفي عنا ده شو أسكدين له أسكدين له بقول كيو بقول اللي ديجان كم وقت احتر له إن قدها أنا درت هذا وحياة بدر معناها حولها دقة صح marka dhirta in la jaro horta macnaha sideeda wanaag ma ahan sax laakiin sideeda waxaan ugu kalifaya macnaha duruufta awgeed aad iyo aad aan ugu kalifays abaara ka dhacda abaara dhacda miya
ها geedaha laftirkooda kaalin waxay ku leeyihiin roobka inay keenaan moogta roobka roobka soo jiida dhirta soo jiidaysa aad iyo aad marka dhirta hadii la jaro meeshii roob la'aan ka dhalanaysa aad iyo aad wallahi waa nasiib daro laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay badal khayr qabanaysiiyo insha Allah deegaanka waa deegaan qurux badan moogta marka aad baa la yaabanaa quruxdiisa waxaan rajaynayaa 10 sano ka bacdi in deegaanka sida ka sii fiicnaado insha Allah waa maasantiin walaal hay هاي سيلا مركا هلكنا مرا مدكته مسبيح ذا مرا اوكي ايغان ايغيا حقي مرين raadkoodan fiirinaya halkan soo jeeda raadkan waa aad buu hooseeyaa raadkan hada si gal waa bad inkastoo aanay boodka lagu talagalay xirnahay laakiin waan fiirinaya insha Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim dan dhaaf finish way marka baraaya ka dhaas ujeedaan dhismayaashan deegaanka qayb ka mid tahay dhismayaashan ujeedaan halkan iyo dhismo kale meesha ku yaala waa soo ogaanayna marka xaqiiqda ka dambaysa dhismayaashan iyo taariikhda ay xambaarsan tahay daanta kale oo xagga naga xigta dhismayaal aad fara badan baan soo arkay marka waa dhismayaal taariikhiya bay la tahay oo taariikh xambaarsan insha Allah waan ogaan doonaa insha Allah marka ila socda asxaabtii waa ku soo dhawaaday ama aan iraade iyaga xoogaa yar break yar qaateen oo ka gaarsiinaya aniga iyo rafaadkii dambe war heer inamayo ii waran saatihiin bismillahir rahmanir rahim meeshan dhiiqan ka dhargay ha waa iga cararteen ma waa iga cararteen waa ka tagrisaa haye maanta wax badan baan duuban ma sha Allah badanna waan sawiran deegaankana ka waran si fiican didka ka daaya ka waran imisa kiila ka degta saaxiibo wallahi maanta waa shaqaystay ma sha Allah footage ku filan magaalada haye oo naafacay yaa dar magacaadu meesha kadib waxaad sheegtay waxa yahay Cali Xasan Goodow waa gartay deegaanka marka naga warbixi dhismayaasha noo muuqda maxay yihiin waxa ku jira kan waxa leeyahay masaajid oo kama askari gaadar wax yar kama masaajid waxa leeyahay masaajid oo wes waa gartay xaq waxa leeyahay jumbo keeke makan xaga shishay ما لا سعر له وجيب عليها جumbo jumbo واي كنا كم مساحة كم زيت وأشياء ويس واي قرتي يا كو أصلا مركا ما مركي أنا بدي ألو سعد له وجهي ها كتم هذا بربرة خد عقال ولا كذا سفي عن يعني ما قد دقيقة الله سعون كره وبيجي بدأ ماشي سقدران هذه مركي هذا أعتقد ها ودع سميع ودرتها مركا كور مركا أركي كرا كور هذا أنت بورت كرتمه وأركزها محمود صعد بان السوقية يدي قبضا حق صعنا بورتنا لوت الماء مصمم ساعة ورقنا ماشى أو بدي وبيجي سقدر سما هي سكيل على مركا دقيقة لما لها قلت أنا مارك هي رمنا مقال فعل صح إنا كسمين هاي رفعت والله بالله dadweyne weynu ogaadaan darafaad kale idin marayo ogaada waxa daawanaysan haye ma aha wax si sahlan ku yimid aad iyo aad tacabkaas loo soo maray wabigana halistiisu leeyahay deegaankana waxa la yiraahdo ma ogtahay hadduu gobolku dhaco bas weeye wagarateen ninkiina waa ka warafaadaya anaguna waa sii socdaa
قرتين بقضي بسم الله الرحمن الرحيم أصيفوا لنا مو ترى إذا بور مفوش أنا يا البورات سميه أنا يا أنا بقى البورات يلا حاجة سنة كثير حاجة كفونا برضو كنا كفول كنا هل كان كفول كنا هل كنا نفور عجيب سمع مقالكن ما يمشي النوض ومن خلدن وحرنتها هم وقت وجاحنتنا سعودي هل كان كفول أنا كاره يا كاميرا سكرينة يا يلا قابا 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 قلبك أنا قفلني أنا قفلني يا قفلني نصار يا بترك الموضة بترك وسيد دم يا معروف وحو هارو قبا والله معروف وحو هاري ايو قبا انا قدال هذا دربا waxaan ba sii soconay wax yar laga fiiriyo muuqaalka halkan ka soo fuulnay fiir hadda muuqaalkii deegaanka Goobweyn intuu leeyahay waa ba sii soconaynaa yaaba isgaarayba yaa isgaar kow lama jeeso hay subhanallah wabigi waa aragtaan wallahi waa rafaad ban sugiyo waa bacaado waa bixiiqisaaba adaan fuulin dhagax hadii aan leed korona leed soma ها وقت توم مالي هدي اللي صار لها 6 باك بشيء ساعة 8 باك بهاللعبة وقت يسوي جدان ماشي وصل رسان شغله والله إذا بعد صار لها الدجاج كجوبين سوي جدان بري الدجاج كيساس واسيس على وحى سوى جيده يبورو وقت جوبين بدي يوابجي واسي سأو جدان halkan wabigii badii aas kaga darsameen ma garateen fiiri ma isku qasmayaan subhanallah macnaha waxa way biyaha wabiga iyo biyaha badda waa la kala garanayaa waa la kala saari karaa subhanallah ayadii maxay ahayd maraj al-bahrayni yaltaqiyaan barzaghun la yaghwi معجزات القرآن الإلهي لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله وآيات كم إذا آياتها قرآن كريم كا وبيجا بيهيسي يبيها بطة اسمه درساميان بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحن نشوفنا ونسيبنا ويلنا إن نبغى deegaanka magaalada Goobweyn oo u jirta taqriiban ugu yaraan 15 kiiloomitir magaalada Kismaayo. Goobweyn waa magaalo taariikhiyan ah oo runtii jirtay dhowr boqol oo sano jirtay. waxay lagu yaqaanaa qurux iyo mataqaanaa muuqaal aad u qurux badan oo ah dhir aad u qurux badan inay ku abuuran yihiin oo nature ah oo runtii evergreen ah. waxaa kaloo Goobweyn ay tahay meelaha loo dalxiis tagi jiray waqtigii dawladda qaranka aan lahayn. waxay magaaladani ajaa'ib ku leedahay in ay isugu yimaadaan badda India iyo webiga Juba. waxaan isleeyahay waa meelaha Maraj al-Bahrain la yiraahdo lagu magacaabo ay badda iyo webigu isugu yimaadaan. waana meesha kaliya ah ee dhulka Soomaaliyeed ay bad iyo webi isugu yimaadaan. haddaad bad u baahan tahay baddi baad galaysaa oo magaalada waa webigii ugu weynaa yani Juba iyo baddi India oo dhinaca ayadana aad ku dabaalan karto. waa meelaha runtii adduunka ku yar inay dhacdo. waxaan marka doorinayaa inay tahay fursad dadka Soomaaliyeed dhulka noocaas inay leeyihiin. waa mahadsantiin. alxamdulillah waan dhamaysanay. hagee maraysan
aan duubo aan sawir ka qaado aadan sheeko ka maqlin indhaha ku aragto bismillaah magay soo ariday dad badan oo Soomaaliyeed أكون halkaas ka daadegayna marka bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim goobweyn insha Allah hanoo nabada ilaahay igu soo celiyo nimba halkan xabado ku barbaranaya waana cambaareenna sooma dadweynaha waxaan leenahay waxba ka cabsanayna laakiin waxa ma wanaagsana deegaankan waa deegaan nabdoon nabadiisa in la ilaaliyo hay ka soo fuulnay dhagaxaas ka soo fuulnay sooma soo daadigu waxa ma haya maxmuudow soo daadigu waa iska ciyaar hada baashaa ya ajiib ma sha Allah daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad aad iyo aad ula dhacsantihiin maanta xog aad fara badan experience aad u wanaagsan war sug boodka galitus walaala eega ninkan waxa ka soo yaacaya sug war maxaa daadinaysaa aadka aan ka soo deg kaba ii buuxsi ayaa waxaas ma ciid ba anigana laakiin saaxibo arrananahay waa inay hadhow laakiin meesha isku furi dood adaa ogde arkayna maanta waa maalin taariikhiya goob taariikhiyaan joognaa ما شاء الله هي دقيقة مرينا هذا مدن دقيقة نقلي ما شاء الله أفرح سنة هاي this is Juba River ودن كانوا هويا look at this حولها حقا نوتشدان أو حال كان إذا كسلامة يا قوبين كسر دوادا بالله قوبين كسر دوادا بقدي بهذا النسجس all the way ساعد بوينا صعنا مرك وهذا وساعد وحويه almost والله وا أفرتي كله ده هاي يا واحد سنة ساعد أفرتين 5 دقيقة قبل دع مركا إنا ندير إنه إيه أنتي أفرتين 5 دقيقة ساعد ساعد وضاء وحرجيني إن شاء الله إنك جالسين وريا ماشين عجائب ويا هذا استكتو هاي أنا وأنا واقف برجيني يا مركا هل كان نستاجيا بين البر وبين البحر آدياد قر محمود هاي سود دالي هي وحفي عنه ما انت فائدة له والله ما انت فوق حسوسته ايا قلنا صومها ضدك waxaa ka midna hay oo farku tiriska ah oo nasiib u yeeshay inay maanta arkaan goobtan muuqaal caankee ayaa ku muuqdeen kayra maxamuud runtii muuqaal aad u sidee u ekeed marka sidee u akaa dareenkaygana aad ayuu uga duwanaa ama si fiican baan ugu faraxsanahay maxaa soo dhacay marka aragtay markuu ugu horeysay biyaha marka aragtay maxaa ku soo dhacday aayadii quraan ku jirta marajal bahrayn marajal bahrayn يلتقيان بينهما برزق لا يبقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن waxa waa inuu ilaahay baddi iyo webigi oo isgalay hadana biyihii صح gaduudkii webiga صح aad ka dhaxarkaysa biyaha kala bad ay isdhex galaynin si fiican runtii waa muuqaal aad ومعجزتي waxay ka mid tahay macjisooyinka oo farku tiriska ah oo nasiib qofka bani aadam u yeesho inuu indhihiisa ku arko wax badan ba internetka ku arki jirnay صح haddana photoshop baa la leeyahay weeye maanta indhaheena ku aragnayaan beenaysiinaya maanta ya dadow waxaan photoshop ma ahane waa for real qofkii rabo macjisada inuu arko ha soo booqdo goobtan waan aragtaa macjiso quraaniya weeye waa macjiso rabbaaniya oo lagu cibr qaataa laga baahan yahay oo wadanka la yimaado la iimaansado oo dhulka la intifaacda laga rabaa annaga ka baahan yahay ma hooyaashin abayaashin ma ahan annaga way jiilka maanta iyo jiilka hadda soo socda marka waxaan leenahay maxaa leenahay marka dadka waxaan leenahay quruxda wadankiina waa aragteen صح dhibki iska daaya aad iyo aad isu soo dhawaada dhulkan iyo badan iyo webiyadan waa wax noo qaybsami kara si fiican qof waliba oo Soomaaliyeed صح marka dadka Soomaaliyeed waxyaabaha raqiista oo isku dhibayaan oo xoog saareen inta iska daayaan صح xaqiiqda u soo dhaadhacaan si fiican dadka waa insha Allah taala waa la wada dhargi doonaa صح dhulkeena badeena webigeena صح baan ugu filan aad iyo aad saas intaas ayaan leeyahay dadka aad iyo aad waxa weeye hadal badan
هاي مبوحشة وركا إدينا يا سكدا ونيسان آدي آد واحد ماشي كجرة هاي أنت أصيان كسو قبقبيننا إن شاء الله أنا صاحبك محمود سفر كأني قابنا أن كنت قلنا مقالة جوبوين آدي آد ولو أن شعلان إن شاء الله إن فرصة ضمبان هاللو وقت في عن أو جوابها تاريخيا لوجهنا كسو تجنو ما دام ماشي كده سنين بريج يعني دنيا شدين أو نجين كره لكن إن شاء الله هو دبالة كرنا لكن سدنا ماشي أنا يحاس كجرة يا فكرة ما يكون أنا تلقى هذا رقم وقت يوم الديار سنين دباشاني رق حرقوني هاي تعبك هذا صومرني يرزقي هذا قلني وحن رجعنا إن شاء الله إنه وحنا تجري عن هذا كوكان عدان إن شاء الله don't forget to like subscribe and share إن شاء الله for more videos هاي أكو بودي والله ايه هلا قلبت والله ده عليها نقشتنا كبر هذه يا زوجة ايه خيارته ومختار نور iyo maxamuud oo iyaguna hawlahooda qabsanaya shaqada ku jira rag baa safraya safar rag baa ku socda rag baa safraya ragna sawir bay galayaan inna waa safray doonta xagee u socota maxamuudo badda galaysaa baddii indiya webigii juba ayuu saaran yahay baddu u socdaa ninkaasi warheedhe armeed yaa mukhtaar waa raacaysaa mi adigana war waa riixayaa waa lagu tuurayaa raggaas waa amba baxeen badda indiga tahriib baa mise waa shaqo shaqa maa loo socda tahriib baa loo socdaa waa raggaan dhulkay jecel yahay waddanka u talinayaan halkaa kala socday khiyaartii waaye wariyaashii caalamka niman qatar waa raggaasi yaa hawl adagaa ka socota meeshaas way ka shidan tahay odayaal anigu waad ka sii tegaynaa waxaad leenahay in insha Allah waxa weeye guulaysan leenahay insha Allah ballantayna insha Allah waxa weeye geedahan hala dhowr geedahan ما درتنا دورنا واجب إنه تاي aad iyo aad هذا قادر ما قصنا جدا ثمانية الله جدا يلا هذه مرة هيا تن ما قدرت تيرستا هذه ما قدرت يا كل يوم راعي كنت لم يتوصل كلا جدا هيا ما بغد ما عبستي هيا نباح دواق وحكى عبغد يلا والدك كنت سوما ورن أذا تاينيو ما قرب بلودنا تقول أدرعه هذا يعني رانتي قدام جرح راعي هيا هذا صان كثير وما قيم السنة كور بهدك جرح نحسب ما قال قراعي عجيب هيا هذا هو حنقول شيء يا المها نحن تشري أما الله يوتمك تشري وحول الله ما تدرس صديق قرشة قربها ما مجالده صون هذا قاعد هاي قرآن كم برتا القرآن كنا برتا اسكتوا يا برشة فرسمان متقنا فرسمان برتا قدام قال تولا تكتو يا قيلن كعب سكرت سوا كعب سنة سوا أنا كعب سنة يا من على السوق ما تابن كره حتى وكبر قاني يا وقر سوا لا يأكل لا يادر يا ذا النفي عنه قول لكن أبصح لو قرأ أنا برتوي كورتا كور ما لها محل أوتر قلي أنا الله مغلق إني صدق من ولا مغلو أنا قاعد تاني عبد القادر كل مناكس يا مختار لأن رأيته يا ما شاء الله إيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سيولا هاي هست بعيد يقال هست لوفا ورت بالكان مغيس بتقالا بالكان لوفا لوفا waxa lagu sameeyay fiil alwaax weeye caagidii saliida tiinki laga jaray laga jeexay farsamo ya these لوفا بالله لوفا made in Somalia ya Somalia lagu sameeyay waragta ma farsamo waana fiil ardayda halkan ku qasnaya saaxiibayaal briskayga iyo baasadeeda halkan ku garsanaya malaaygaadana wuu ka qabsanaysaa لكن بهلا نيو كقبو وجدا like subscribe and comment peace
أنا قافلني يا نصار يا بترك الموضة بترك وسيد دمية معروف وحو هارو قبا والله معروف وحو هاري يو قبا أنا قدال هذا دربا waxaan basi soconay wax yar haga fiiriyo muuqaalka halkan ka soo fuulnay fiiriyo hadda muuqaalkii deegaanka Goobweyn intuu leeyahay waa basi soconayna yaaba isgaarayba yaa isgaar xawla midayso hay subhanallah wabigi waa aragtaan wallahi waa faad ban sugiyo waa bacaado waa bixiqisaaba adaan fuulin dhagax hadii aan leed korona leed soma ها وقت ما توم على هدي اللي صار لها 6 باك بشيء ساعة 8 باك وهلا وقت يسوي جدان ماشي وصل رسان شغله والله إذا بعد صار لها دقيقة كجوبين سوي جدان بيري دقيقة كيساس واسيس على وحى سوا جيده يبورو وقت جوبين بدي يوابجي واسي سأو جدان هالكان وبيجي بدي أسك يقدر سمين ما قلت فيري ما اسكو قسمة يا سبحان الله معناها وحوي يبيها وبيجا يبيها بدة ولا كلا قرنيا ولا كلا صار كرا سبحان الله أيدي محيهد مرج البحرين يلتقيان برزغ لا يغوي لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله وآيات كم إذا آياتها قرآن كريم كا وبيجا بيهيسي يبيها بطة اسكو مدر سميان بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحن نشوفنا أو نسيبنا يلنا إن نمانو deegaanka magaalada Goobweyn oo u jirta taqriiban ugu yaraan 15 kiiloomitir magaalada Kismaayo Goobweyn waa magaalo taariikhi ah oo runtii jirtay dhowr boqol oo sano jirtay waxay lagu yaqaanaa qurux iyo mataqaanaa muuqaal aad u qurux badan oo ah dhir aad u qurux badan inay ku abuuran yihiin oo nature ah oo runtii evergreen ah waxa kale oo Goobweyn ay tahay meelaha loo dalxiis tagi kara jiray waqtigii dawladda qaranka aan lahayn waxay magaaladani ajaa'ib ku leedahay in ay isugu yimaadaan badda India iyo webiga Juba waxaan isleeyahay waa meelaha Manajal Bahrain la yiraahdo lagu magacaabo ay badda iyo webigu isugu yimaadaan waana meesha kali ah ee dhulka Soomaaliyeed ay bad iyo webi isugu yimaadaan haddaad bad u baahan tahay baddi baad galaysaa oo magaalo waa webigii ugu weynaa yani Juba iyo baddi India oo dhinaca ayadana aad ku dabaalan karto waa meelaha runtii adduunka ku yar inay dhacdo waxaan marka boorinayaa inay tahay fursad dadka Soomaaliyeed dhulka noocaas inay leeyihiin waa mahadsantiin alxamdulillah waa dhamaysanay hagee maraysan aan duubo aan sawir ka qaado aadan sheeko ka maqlin indhaha ku aragto bismillaah magaysi horiday أكون halkaas ka daadagayna marka bismillaahir rahmaanir rahiim Goobweyn insha Allah hanoo nabada ilaahay igu soo celiyo nimba halkan xabado ku barbaranaya waana cambaareenna sooma dadweynaha waxa leenahay waxa ka cabsanayna laakiin waxa ma wanaagsana deegaankan waa deegaan nabdoon nabadiisa in la ilaaliyo هيك صوفولني دقيقة حاسة صوفولني سوما سودادك وحمها يا محمودو سودادك واسكعيا البشر يا عجيب ما شاء الله طاود يلا وحرشيني إناد
aad iyo aad ula dhacsantihiin maanta xog aad fara badan experience aad u wanaagsan war sug buudka galitus walaala eega ninkan waxa ka soo yaacaya sug war maxaa daadinaysaa aadka aan ka soo deg kaba ii buuxsi ayaa waxaas ma ciid baa anigana laakiin saaxibo arrananahay waa inay hadhow laakiin meesha isku furi dood adaa ogde arkayna maanta waa maalin taariikhi ah goob taariikhi ayaan joognaa ma sha Allah هاي دقيقة مرينا هذا مدن دقيقة نقلي ما شاء الله أفرح سنة هاي this is Juba River ودن كانوا هويا look at these حولها حقا نوتشدان أو حال كان إذا كسلام يا قوبين كسر دوادا بالله قوبين كسر دوادا بقدر بهذا النسجس all the way ساعد بوينا صعنا مرك وهذا وساعد وحويه almost والله أفرتي كله ده هاي يا waxay haysanaa saacad 45 daqiiqo gabal dhac marka inaan dheerano way runtii 45 daqiiqo socono saacad wada ah waxaan rajaynayaa insha Allah in ka gaarsiino wariya meeshan cajaa'ib way hadda istaagto hay aniguna waa ku barajaynayaa marka halkan aan istaagaya بين البر وبين البحر آديات قر محمود هاي سود دالي هي وحفي عنه ما انت فائدة له والله ما انت فوق حسوسته ايا قلنا صومها ضدك وحا كمدنا هاي oo farku tiriska ah oo nasiib u yeeshay inay maanta arkaan goobtan muuqaal caankee ayaa ku muuqdeen kayra maxamuud runtii muuqaal aad u qurux sidee u ekeed marka sidee u ka dareenkaygana aad ayuu uga duwanaa ama si fiican baan ugu faraxsanahay ma soo dhacay marka aragtay markuu ugu horeysay biyaha marka aragtay waxa ku soo dhacday aayadii quraan ku jirta marjal bahrayn مرجال بحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن marka waxa waa inuu ilaahay baddi iyo webigi oo isgalay hadana biyihi صح gaduudkii webiga aad ka dhaxarkaysa biyaha kala bad ee is dhex galaynin si fiican runtii waa muuqaal aad ومعجزتي وحي كمتي معجزooyinka oo farkutiriska ah oo nasiib qofka bani aadam u yeesho inuu indhihiisa ku arko wax badan ba internetka ku arki jirnay صح hadana photoshop baa la leeyahay weeye maanta indhaheena ka aragnayaan beenaysiinaya maanta ya dado waxaan photoshop ma ahane waa for real qofkii rabo معجزada inuu arko ha soo booqdo goobtan waan aragtaa معجزه quraaniga weeye waa معجزه rabbaaniya oo lagu cibr qaataa laga baahan yahay oo wadanka la imaado la iimaansado oo dhulka la intifaacda laga rabaa anaga ka baahan yahay ma hooyaashin abayaashin ma ahan anaga way jiilka maanta iyo jiilka hadda soo socda marka waxaan leenahay xalana marka dadka waxaan leenahay quruxda wadankiina waa aragtaan sax dibki iska daaya aad iyo aad isu soo dhawaada dhulkan iyo badan iyo webiyadan waa wax noo qaybsami kara si fiican qof waliba oo Soomaaliyeed sax marka dadka Soomaaliyeed waxyaabaha raqiista oo isku dhibayaan oo xoog saareen inta iska daayaan sax xaqiiqda ha u soo dhaadhacaan si fiican dadka waa insha Allah taala waa la wada dhargi doonaa sax dhulkeena badeena webigeena sax baan ugu filan aad iyo aad saas intaas ayaan leeyahay dadka aad iyo aad waxa weeye hadal badan هانو بوحشة وركا إدينا يتكتاونا يسان آدي آد واحد ماشا كجرة هاي انت أسيان كسو قبقبيننا إن شاء الله أنا صاحبك محمود سفر كأني قابنا أن كنت قني مقالة قوبوين آدي آد ولو أن شعلان إن شاء الله إن فرصة ضمبان هالوقت في عن أو قوبها تاريخيا لوجهنا كسو تقنو ما دام ماشي كدسنا بريج يعني دنيا تشرين أو نجين كره لكن إن شاء الله هو دبالة كرنا لقيت الدنيا عشان يحاسب جرا يا كره ما يكون أنا تلقين ده هذا رقم وقت يوم الديار سنين دباشاني رق حرقوني هاي تعب هذا صومرني يرزقي هذا قلني وحنرجعنا إن شاء الله إنه وحنا تيجي عن هذا كوكان عدان إن شاء الله don't forget to like subscribe and share إن شاء الله for more videos هاي أكو بودي والله. أيه. هلا قلبت.
والله ده عليها نقشتنا كور هذه يا زوجة ايه خيارته ومختار نور iyo maxamuud oo iyaguna hawlahooda qabsanaya shaqada ku jira rag baa safraya safar rag baa ku socda rag baa safraya ragna sawir bay galayaan inna waa safray doonta xagee u socota maxamuudo badda galaysaa badii Hindiya wabigii Juba ayuu saaran yahay baddu u socdaa ninkaasi warheedhe armeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يلا الصبح وناكسن بعد الله نهاي أنا يو صاحبك محمود عبد العزيز بعد السلام أنا يو هاي إنا مقنع دا أمنا سنتين كذا أنت على واتشوغا واتشوغا حاجة صنع حنوصلنا جوبوين مال كبحسن كسمايو where Juba River and the Indian Ocean connects لا صعدة بركة صاحبي يلا محا قدر يا محمود waxaan ku darayaa waa qaybaha quruxda Soomaaliya ayaan ku soo bandhigi doonaa vloggan insha Allah taala sababtoo ah meesha ay webiga iyo badda iska galaan صح biyaha si isu dhaafaanaan mucjisadaas inaan soo aragna doonana insha Allah 1 liter diyaarsanahay macnaha diyaarsanahay 1 liter man everybody with 1 liter sama waa ku qabaysan aniga laakiin biyo badan waa war biyo macaan baa meesha taala ma ku qabaysan kan is too much saas miya not for drinking waa gartay marka saaxiib yaal hadda was diyaarinayna waa saacadu waxa weeye waa subax wala dhaafay waa 12:40 daqiiqo door wanaagsan marka raalaha door wanaagsan baad leeyahay subax wanaagsan waa ilaa saaka diyaar garowba ku jirnaa raalahaada waa 15 kilomitir oo wado laami ah iyo wado rafa oo marinaya wala ga degay insha Allah nala socod saaxiib yaal هي عم تخلوي قال ممكن waxa ku xiran kan ugu horeeya koor baa ku xiran koor surkiisa maartay soo saaraysa dhawaaq si looga garto meesha joogo dabeerkii iyo lo'dii iyo arigii goobin ma joognaa soo jeedaan webigii baa hadda marinaa geedihii xagga nagaga muuqda dadwey xoolo dhaqatadii xaggaas joogaan geela iyo marxaba soo dhawaad wadana geel waa salaamanahay waana dhownahay aad baa mahadsantahay ايه هليو هابو تعال لما كلا ورابنا يا ما كلا ورابنا محل ده او ماي جاد ودي واحد يجيب معاه يابا ترى بقى انا كنت تاغناي قالوا قال فولي بشير قال به به كمان هيس درين غيري ما هي يلا هذا يا شوكولاته شوكولاته قال ما شوكولاته ها ترتيب ها اسكالي ها هلا There was a meeting of camels here. They were talking about the environment and they were talking about where Juba River connects with the Indian Ocean. So it was an important meeting. أنا كنا هدينا هنا رير جيل. شركة من الوعزومة. والوعزومة. والله كقرب قلنا. وقت داوديال ولي waxaan si galeena deegaanka Gobweyn soo jeedaan baba dhaweyn kooy laba ma marayno deegaanka waa aad buu weyn yahay waxaas u dhula oo ballaaran oo aad ka u quruxda badan gudaha weeye marka mushkiladda waxa weeye xagga wadada in
doon loo raaco xagga gudaha la sii galo dhanka kale la sii galo annaga marka ma awoodna hadda waayo doomihiiba hadda aan ka shaqeynayna oo service ka sameynaya laakiin kor baan insha Allah ka tusaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay nagu simo fursad kale oo aan gudaha ku sii boqon karno insha Allah deegaanka Goobweyn meelo ka sii shisheeyay meesha hadda aan tusayno insha Allah laakiin waa fursad aad u qurux badan weeye aad aan ku faraxsanahay nala socda saaxiibayaal inta yarta nala daawada kuna soo dhawaada Goobweyn ee Jubbada Hoose واي مسرت هذا الكلب ها هاي قطه ما قاعد يقول حاجه سو قرتي غوبين يا غوبين قوبين حاجه قوبين ما ماشي جوان حاجه تجيني مركا كدب اسمع waxa way wax badan baa naga dhuuntay hayay bal hadal aniga horta this is my second time here first time I was here was 2014 but I didn't get the chance to reach until then but this is totally amazing beauty. This is where the river connects to the Indian Ocean. So you can imagine you don't just find many places that connect to the river where it connects to the ocean. So definitely it's a sight to behold and it's a tourist destination. Before the Civil War, Juba the Hose or Aloe Juba for those who want to speak English was the main area where tourists used to come. So it's very beautiful, it's magnificent. You can see the palm trees, you can see the river, you can see the Indian Ocean, and they used to have zoos here and animals, all sorts of animals. So welcome to Somalia. هو قرتي ولي وصي سعانا قاري مش لقوم بركرو ولا I am ruined now. صور صاحب Officially ruined. هو مريا كان حقي كان ورنا تقريا حقي مرة ربتي هلك مرة ربتي مايا إذا بدر أنتوا زمانها سانا ده أي عندنا وحقو صار عليه وكح معطي وتر راح سوري صاحب سبحان الله this is really beautiful بالفيري كذي والله وجو ما شاء الله دقن ويه رنتي سبحان الله وحصل الله سنة معلومة بما أنت قدم بيسا ديجان كقرحون ديجان كهرباء أركسا والله وودن كان وودن قنية لكن نصيب ضرو دتك يسموه دتك يسواه هردان صومالي سوكع Okay, وستة وهي قصي فوقادين. Alright, عشان يا هلكن أنا فولو أنا غني صح؟ Because سأقول جدا لكم مود السنة كذا هم إلا سكيل شوي. That is very much dangerous because بقدر أدح جريس أمورته بقدر هي خصك جريس أمريكا. We have to be careful. Have to be careful here. وحل إيري. وبيجا أنت لسه صعنايو مش سكوي ماني يعني بدأ وحلص على ساعدي بر إلى ساعدي أفتن دقة واللقة قاري مقلي كرو دنيا هدا هسن لهن هراك قل لهن لكن سايدي شيء من الصوروبين مركا أوه بس ولا ماشي لوسي سمني هاي لقى لقيت تجي وح ماشي شوقنا لقى لقيت تجي أنا قدام بيه ما حسمنا سوالف أنا waxaan sameynaa dhuxul shidayna dhuxul baa shidaysan miya marka waxa soo geenteen miya waxaan taara waa gartay ha marka waa maxaa ka dhalanaya marka ka dhalanaysa dhuxul ka dhalanaysa dhuxul baa ka dhalanaysa miya waxa soo dhuxul noqonayaan miya ha maalmood saddex maalmood ay xirnaan maalmood aqriiba marka geedaha xagee laga soo jaray
durka miya oo deegaanka miya waa gartay laakiin miyaysan dhibaato ahayn laakiin geedahan la jaro laakiin waxaan ogeeyay macnaha hunguri wax la yiraahdo baahida miya waa gartay maanta kale hadda wax ka fiican hadda hesho waa iska deyn lahayd waa iska deyn lahayn 100% ilan deegaanka ma ogta xtar lahayd geedahan ana dirtaada waxyaabo badan macnaha xoolaha daaqa sax marka dhirta in la jaro horta macnaha sidaad wanaag ma ahan sax laakiin sidaad waxaan ugu kalifayaa macnaha duruufta awgeed aad iyo aad aan ugu kalifays abaara ka dhacday abaara dhacday miya geedaha laftarkooda kaalin waxay ku leeyihiin roobka inay keenaan moogta roobka roobka soo jiida dhirta soo jiidaysa aad iyo aad marka dhirta hadii la jaro meeshii roob la'aan ka dhalanaysa aad iyo aad wallahi waa nasiib daro laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay badal khayr qabadisiiyo insha Allah deegaanka waa deegaan qurux badan moogta marka aad baa la yaabanaa quruxdiisa waxaan rajaynayaa 10 sano ka bacdi inuu deegaanka sida ka sii fiicnaado insha Allah waa maasantiin wada hay هاي سيلا مركم هل كنا مرة مدكته مسبح ذا مرة أوكي إيجان إيجيا حقي مرين رات كودن فيرينيا هل كان سأوتش الدار رات كان وآد بوه سيارات كان هذا سيقل وابط إن كستو أنا يبوت كل قلت لقلنا حرنا لكن فيرينيا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم دون فينش شوية مركه بلا يا كداس ujeedaan dhismayaashan deegaanka qayb ka mid tahay dhismayaashan ujeedaan halkan iyo dhismo kale meesha ku yaala waa soo ogaanayna marka xaqiiqda ka dambeysa dhismayaashan iyo taariikhda ay xambaarsan tahay daanta kale oo xagga naga xigta dhismayaal aad fara badan baan soo arkay marka waa dhismayaal taariikhiya bay la tahay oo taariikh xambaarsan insha Allah waan ogaan doonaa insha Allah marka ilaa socda asxaabtii waa ku soo dhawaaday ama aan iraade iyaga xoogaa yar break yar qaateen oo ka gaarsiinaya aniga iyo rafaadkii dambe war heer inamayo ii warama saatihiin bismillaahi raxmaani raxiim meeshan dhiiqaan ka dhargay ها ويقع عرفتين ما هي ويقع عرفتين وخاتك رسالة هي ما أنت واحد بدن بندوغن ما شاء الله بدن نوان سورن ديان كان كورن في عندي كاد أي كورن إمسك كيلا كادك تساحبه والله ما أنت واش قيس واش سوا كنت تشوف في المقالة اي يعني وانا انفعل يا هذا المقعد ما شاكد بحد شكل وحياها علي حسن قوضو واقرتي ديان كان مركا نغور بخي دسمياشا نو موقدا مخيهين ما حكو جرى اسكري كانوا حاليها مساجد كمان اسكري قادر واحد كم مساجد حاليها مساجد وس واقرتي حقوا حاليها هن جنبو كيكي ما كان حاجه شيء ما لا سبحان الله وجيب حاليها جنبو واي كنا كم مساحه كم مساجد وس واقرتي ياكو اصلا مركا ما مركي نبدي لو سراد لو دوجي قدام هذا بربره كدع ولا كذا si fiican يعني ما قد دقيقه لو سocon kara wabigi bada meesha isaga daraan هذه مركي هذا تagto ورها waa samia waa dheertahay marka kor marka ma laga arki karaa korha hadii inta buurta kortabo waa arkaysaa maxmuudow socod baan sugayow iyo dhiiqo badan xaga soconaa
waxaan u soconaa buurta buurta naloo tilmaamay soo ma buurtaas si aan u aragno meesha oo badii webiga isaga darsamay haa iska ilaali marka dhiiqadaas muuqaal dhib ma laha dhulkeena ma arag ayaan rabnaa muuqaal fiican sax inaan ka sameyn rafaad wallahi billah dadweyne waa inuu ogaadaan dee rafaadka la idiin marayo ogaada waxaad daawanaysaan haye ma aha wax si sahlan ku yimid aad iyo aad tacabkaasaa loo soo maray webigana halistiisuu leeyahay deegaankana waxaa la yidhi ma ogtahay hadduu gobolku dhaco bas weeye ma garateen ninkiina waa ka waa rafaadayaa aniguna dee waa sii socdaa ma garateen dhiiqadii bismillahi raxmaan raxiim waa sii fuulanaa buurta aragti weligaa buur ma fuusha aniga reer buureed soomaya anigu anaaba ah reer buureed ilaa xaggaas inaan ka sii waxay ka fuuleen biladu kana aan ku fuul karnaa halkaan aan ku fuul karnaa halkaan aan fuul cajiib soo ma muuqaalkan may meesha noo wado waa meel khaldan waa xiran tahay moogta waa jeexantana soo celi halkaan aan ka fuulanaa kaale kaamera iska ridaya قبل قلبك